munaasabadan waxaa lagu soo bandhigayay ajandaha siyaasadeed ee xisbiga himilo qaran oo uu ka mid yahay hogaamiyaashiisa madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Mas'uuliyiinta goobta ka hadlay waxaa ku jiray gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu sheegay in xisbiyadu halkii ay joogeen 1945 ilaa maanta wax isbedel aysan ka dhicin, taasna nasiib xumo lagu tilmaami karo. waxaana uu sheegay in kaadirka xisbigu xarun uu ka soo baxo ama dugsi aysan ku oolin Soomaaliya, taasna ay mas'uuliyadeeda qaadanayso dowladda hadda jirta. ma jirin muddadan aan idin sheegay oo 50 sano haddaan ka reebatii oo aan ka reebatay xisbiga hanti wadaagga aan ka reebo ma jirin dalka meel ay uga soo baxaan kaadirka hogaaminta iyo kaadirka siyaasadeed meel ay uga soo baxaan ma jirin. jiilka aniga aan ka tirsanaa waxaan soo saaray axsaab siyaasi iskool elementaare ibtidaa'iga markaan dhiganayo buuxa baan ku dhigtay kontonaadkii. bil kasta isniinta ugu dambaysa waxaa noo imaan jiray komitaatada oo local committee-ga oo xisbiya ayaa noo imaanaysay oo nala hadlaysay. axad waxaa noo imaanaya Israel way ka sirnaayeen arrinta oo bartilmaameedka ay u socdaan xorriyadoon Soomaali mideyn in laga maqan Jabuuti inaga maqan tahay in kaan naga maqan in FD naga maqan waxaas ayagana soo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in gobolka Banaadir matala siyaasadeed uusan yeelan ay tahay wax laga xumaado. dhanka kale waxa uu sheegay in waqtigii uu hogaanka dowladnimada hayay uu ku guuldaraystay in matala siyaasadeed Muqdisho ay yeelato uu ku guuldaraystay, laakiin ka siyaasi ahaan uusan marna ka xishoonayn in uu ka hadlo arrinkaasi. talada siyaasadda ee dalka in la furo, dowladuna ay hogaamiso si fowdo ah inay ku furanto oo meelaha laga qayqaylaa waxba tari mayso. dowladdu waa inay ogolaataa, raalli ka noqotaa, fududaysaa, dhiirigelisaa, ilaalisaa siyaasiyiintu marka ay hadlayaan. dadka waa mucaarad iyo waa qaran dumis iyo waa kan iyo waa mucaarad iyo waa qaran dumis yaan lagu dheelo gurigaaga iska gal qofna ma dhahayo. dadku waa hadlayaan, waa isu tegayaan sida ugu habbooneeday isugu tegi lahaayeen haddii laga hor istaaga xataa si aan habboonayn isugu tagayaan. marka marna inay isu tagaan lama celi karo. dowladda federaalka ah waxaan ku dhiirigelinaynaa iyo hoggaankeeda saaxada siyaasadda in la furo. annaguna diyaaraan u nahay inaan ku taageero wax kasta oo qaanuunka waafaqsan oo dastuurka waafaqsan oo dowladdu ay waddo waxaan diyaar u nahay inaan ku taageerno. wax kasta oo dastuurka dhinac marsan, qaanuunka dhinac marsanne inaan diidnaan diyaar u nahay. iskuma darna xaajadu. haddaan dastuurka waxa ka soo horjeeda maya aan dhaho qaran dumis ma ahi, dowlad diid ma ahi, dowlad dhise iyo qaran dhisaan ahay. laanna dastuurkaas in lagu dhaqmaaqo aad iyo aad inuu u kala cad yahaan rabaa warkaas. dadka Soomaaliyeedna marna aan lagu muxuu ahay kalsoomin laguna kedinin. dalkan inuu horumaraan rabnaa, dhaqan suuban inuu samaysmaan rabnaa. ilaa ay hadda sida gudoomiye Jawaar halkan uga sheegay dhaqan soo socday waa suubanaay. waa la yaqiinay waxa dhacayo, waqtiga ay dhacayaan iyo jawaabtu hadday soo baxdo sida ay noqonayso. waa la tartamayaa, siyaasadda lagu tartamayaa, dadka Soomaaliyeed wax dooranayo, qofkay doortaanna waa loo hambalyaynayaa, qofkay dooran waayaanna asoo raalli ah oo yiridaa ka baxa. saasay soo ahaan jirtay sida ugu fiican waana inay saas ahaato. wax intaas ka hooseeyo oo ka liita ma yeelin. khudbaddii ugu dambeysay ee xafladan lagu soo xiriyay waxaa qaatay madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. waxa uu sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado ammaanka Muqdisho maanta heerka uu taagan yahay marka la eego, isagoo sheegay in nasiib darro ay u dhinteen dadkii Muqdisho iyaga oo xoreynaya dhintay maadaama dowladihii ka dambeeyay aysan ammaanka waxba ka qaban, haba ugu darnaato sida uu yiri dowladda hadda jirta oo ammaanka Muqdisho gacanta ka laabatay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in doorasho xisbi aysan dalkan ka dhici karin, waxaana uu su'aal geliyay haddii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku aysan heshiis ahayn sida ay ku dhici karto doorasho xisbi. dalkan federaal ah ku soo hogaaminay Soomaaliya hadday rabto federaal inay ka tagto waa inay isu timaado, go'aan ku gaarto nidaamka siyaasadeed ay rabto inay raacdo. aniga waa waqti waxaan ka imid maxkamadda islaamiga. maxkamadda islaamiga ra'yigoodu wuxuu ahaa federaal dalka uma fiican
anaana ku hogaaminayo laakiin markii dowladdii cabdullaahi yuusuf raxmatullaahi calayhi wadahadalka aan la galnay waxaan ku heshiinay si horta dhibaatada loo yareeyo federaalka inaan waafaqnay hal maalinna kama leexan madaxweyne xasan sheekh waa ku mahadsan inuu suuro geliyey hirgelintii federaalka haddii dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ay wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa habka lagu gaarayo doorasho haddii xisbiyada iyo dowladda aysan wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa sida lagu gaarayo doorasho maya okay intaas wax ka duwan hadday jiraan ayadana waxaan jecelnahay in nolosha la dheeraa maya doorasho suurtagal ma aha sababkaan iyo sababkaana jira raalli ahaada inaan fahamnaan rabnaa ku talagalno waxaan rabnaa marka inaan xoojinno wadahadalkii ka bilaabda Garowe oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu ku ballan qaaday inuu sii wadi doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadallada dib loo soo laabtaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno isu soo dhawayntooda iyo horu socodkooda dhammaantood mas'uuliyiinta halkan ka hadlay waxa ay dhaliilo u jeediyeen dowladda federaalka iyagoo ku dhaliilay qaybo ay ka mid yihiin ammaanka xorriyatul qowlka iyo sida ay u wajahdo xiriirka maamul goboleedyada cali aadan muumin goobjoog muqdisho